Al-Shabaab oo weerar ku bilowday qaraxyo ku qaaday gudaha degmada Ceeldheer warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar xooggan oo qaraxyo ku bilowday oo ay saakay Al-Shabaab ku qaadeen gudaha degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud halkaas oo uu ka dhacay dagaal culus. Koox ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa 4 jiho ka weeraray magaaladaas oo ay gacanta ku hayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ee Macawisleyda waxaana kadib xigay dagaal toos ah oo u dhaxeeyay labada dhinac. Ila dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in weerarka iyo qaraxyada si weyn loogu dareemay gudaha magaalada isla markaana ay maqlayeen hubka isweedaarsanayaan labada dhinac. Kooxda Al-Shabaab oo war ka soo saartay howlgalkan ayaa sheegtay inay kula wareegtay fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada iyo xarumo muhiim ah oo ku yaala halkaasi. Dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo iyadana war-saxaafadeed soo saartay ayaa sheegtay in la jebiyay Al-Shabaabkii weerarka ku soo qaaday gudaha degmada Ceeldheer. Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka ayaa saakay jab xooggan u geystay kooxda Al-Shabaab oo waa berigii hore ee saakay weerar ku soo qaaday fariisimo ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ku leeyihiin degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud ayaa lagu yiri qoraalka. Sidoo kale waxaa la sii raaciyay ciidamada ayaa horay u hayay xogta inay kooxda Al-Shabaab qorsheynayaan weerarkan taasi oo keentay in ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada deegaanka oo aad u feejignaa isla markaana difaacyo ugu jiray meel ka baxsan fariisimihii lagu yaqiinay ay qaflad ku qabteen. Kooxda qorshahoodu ahaa inay wax dhagraan taasina ay sahashay in kooxda Al-Shabaab badan halkaas loogu dilo. Xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana weli dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayaa aagga degmada Ceeldheer ee bariga gobolka Galgaduud. Ceeldheer oo ka mid ah magaalooyinka laga xoreeyay Al-Shabaab ayaa waxaa haatan ku sugan ciidamada Gorgor, kuwa Danab iyo ciidamada Macawisleyda.